wareegay madaxweynaha Soomaaliya ee tobanaad xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markan yahay weerarkii ugu horeeyay ka oo markaasi naftood haligayaal ay markan ku qaadeen Hotel Xayaat ayaa jiha ahaan ku yaala isgoyska kilomitir 4 ee gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodan iyadoona markan ay tahay mid markaasi ilaa iyo haatan guulo waaweyn laga gaaray maadaama ciidamada Alpha Group oo iyagu markii ugu dambeysay maqalkooda iyo waliba muuqoodu ay ahayd sanadkii 2016 xilliga oo madaxweynaha dalka uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud ay iyagu ahaayeen markii ugu horeysay dib kuwa uga soo muuqda kaamaradaha isla markaana howlgalka qayb ka noqday laakiin ay ku guul dareysteen dhanka kale waxaa la howlgeliyay ciidamada iyagu Turkiga lagu soo tababaray howlgallo markaasi lagu xasuusto kuwii ka dhacay Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed oo markaasi looga faramaroojiyay xilkii uu ka hayay Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ay fuliyeen iyo waliba kii isku dayga ahaa ee markaasi qoorqoor lagu doonayay in xilka lagu weydaariyo ay markaasi ahlu sunna u sameeyeen taariikh cajiib ah oo ilaa iyo haatan saaxada siyaasadda aysan ka soo muuqan haramcad ayaa xilligan waxa yihiin kuwa iyagu ka howlgalaya soo afjarida maleeshiyada iyagu ku sugan gudaha garoonka oo markaasi weerar baan ay ku hayaan horjoogaha isagu taagtikada shabaabka yaqaana ee markaasi ah taliyaha guud ee ciidamada booliska haramcad ee gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaana hogaaminayo ilaa iyo haatan wararka la sheegaya ayaa waxay yihiin mid markaasi ay toogteen qaar kamid ah xoogaga gudaha ku sugan balse afayeenka ciidamada dagaalyahanada ka dagaalama Soomaaliya ee hubeysan Sheekh Cabdilcaziz Abu Mascab ayaa war qoraal ah markaasi daabacday warbaahinta taageerta ka faahfaahiyay howlgalka iyo waliba qaabka ay markaasi ugu suura gashay in ay galaan waxaase uu sheegay in ilaa iyo haatan ay markaasi iyagu hoggaanka u hayaan meesha lagu dagaalamayo ee hotelka isla markaana uu sheegay in dawladda federaalka ay ku soo qaadeen 15 jeer weeraro isku day iyagu lagu gabagabeyn lahaa laakiin waxa uu sheegay in xoogag uu markaasi ku sheegay mujaahidiin inay yihiin in ay iska caabin ku sameeyeen laakiin sheegashada shabaabka ayaa inta badan waxa yihiin kuwa wax kama jiraan marka laga hadlayo ee howlgallada ay sameeyaan ugu dambeyn fashil ku dhamaada isla markaana la toogto mararka qaarna ay dhacdo in la soo qabto sidii ka dhacday howlgalkii Kismaayo ka dhacay sanadkii 2019 oo markaasi hotel kamida kuwa loogu mashquulka badan yahay ee cascasay ay weerar ku qaadeen xilliga oo Jubbaland iyadoo ay ahayd mid markaasi doorasho ku jirtay laakiin ugu dambeyn waxa ay keentay in weeraryahanada oo iyagu tiradooda lagu sheegay 4 kamida la dilay halka mid kamida isagoo dhaawacna la xiray ilaa iyo haatan Jubbaland dhankeeda waxa iyadu lagu sheegaa in ay markaasi ninkaasi keentay ugu dambeyn maxkamad laakiin ay toogatay xilligan xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya arrimo la xiriira dhanka amniga iyadoona taliyihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu markaas sheegay magacaabistii Mahasad inay ahayd fashilkii ugu weynaa ee ku bilaabatay dawladda xasan sheekh maxamuud laakiin Mahasad ayaa ilaa iyo haatan waxa uu yahay mid ka aamusan marka laga reebo tagitaan la sheegay inuu goobta gaaray isla markaana ku amray ciidamada qaybahooda kala duwan in weerarka ay soo afjaraan Soomaaliya ayaa su'aalo aad u tiro badan la iska weydiinaya isbedelka markaasi ku yimid hoggaanka ciidamada iyo waliba dawladda curatay iyadona inta badan dadka qaar ay la dhacsanaayeen taagtikada iyo waliba qaabka howlgelinta ciidamada dawladii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo inta badan ilaa iyo haatan la soo qaadanayo muuqaalo iyo waliba hadallo dhanka amniga ay markaasi ka tiri dawladdaasi xilligii ay xukunka haysay oo maanta diiwaanka u galay in baraha bulshada loogu maadeysto dawladda xasan sheekh maxamuud ilaa iyo haatan caasimada Soomaaliya ayaa jabi aan wanaagsanayn markaasi ku jirta waxaana dhibaato ay markaasi la kulmayaan dadka iyagu ku hoos nool deegaanada lagu dagaalamayo iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in dawladda ay qaadatay go'aan ah in gabi ahaanba la burburiyo hotelka maadaama la sheegayo isla markaana sawirro laga soo qaaday ay ahaayeen caagado ku jira markaasi waxyaabo loo maleeyay inay yihiin kuwa qarxa oo la dhigay hareeraha hotelka iyadoona arrintan ay noqon karto weji kale oo u yeeraysa in gabi ahaanba la burburiyo iyadoona ay suuragal noqon karto in halkaasi ay ku jiraan dadkii leeday oo meedadkooda ilaa iyo haatan la helin dadka qaar ee shacabka Soomaaliyeed ee iyadu eheladooda ilaa iyo haatan ay la'san yihiin teeriyo markii ay bilaabatay howlgalka ay shabaabka ku qaadeen Hotel Xayaat ayaa markaasi taagan hareeraha hotelka iyadoona warbaahinta qaar dadka ay markaasi ku sheegeen inay yihiin kuwa dadka haligaya maadaama howlgalkii oo idlaanin ay yiraahdeen waa la soo afjaray taa beddelkeedana shacabka qaar ay markan dhibaato kala kulmayaan
haddaba arrimahaasi ayaan si kooban waxaa markaasi ka weydiin doonaa inagoo inta badan xogtii halkan idinkula wadaagnay ahayd markaasi kuwii ugu dambeeyey balgambi maxaa ugu dambeeyey hal iyo laba haddii aad ka tiraahdo arrimaha la xiriira weerarkan iyo weliba waxyaabaha kasoo kordhay. axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay. weerarkan 24 saacadood ayaa kasoo wareegtay waqtigii lagu bilaabay hoteelka xayaat ee kilomitir 4 ayadoo weli xaaladda hoteelku ay cakiran tahay marba marka ka dambaysan ay kasii darayso khasaaraha soo gaadhay bulshada Soomaaliyeed ee goobtaasi uu ku haleelay weerarkan ay marba marka ka dambaysa ay cirka isku shareerayso. sidoo kale waxaa xusid mudan inay isbitaalada Muqdisho ay qayla dhaan direen oo sheegeen gabi ahaanba in ay buuxsameen isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida Madiino iyo Digfeer guud ahaan inay ciirciirayaan dadka dhaawaca soo gaaray ee laga soo daabulayo hoteelkaasi khasaaraha weyn soo gaaray ee weli ilaa saacadan ay taagan tahay weerarada xooggan ay ku hayaan xoogga argagixisada iyo ciidanka dawladda ee raba inay gabi ahaanba soo afjaraan weerarkaasi. muddo dheer ayuu qaatay dawladda Soomaaliya arrintaasi waxay kala kulmaysaa dhaliilo aad u waaweyn oo bulshada Soomaaliyeed ay ka turjumayaan waxa meeshaasi ka socda ayadoo sidii la wada ogsoonaaba uu weerarkaasi habeenkiisii labaad u galay welina ay soconayaan ciidamada dawladuna ay weli wadaan iska difaacidda xooggan ay waxyaalaha ay soo tuurayaan. ciidamada dawladana waxaa la sheegay in ay isbedelayaan oo qolaba mar la soo gelinayo ayadoo hadda qayladhaantii ugu dambeysay ciidamada loo yaqaan Haramcad ay galeen meesha ayadoo ku horeeyeen xoogga loo yaqaan Alpha Group oo muddo dheer aan meediyaha ka soo muuqanin ilaa dawladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan muuqooda la arag hase yeeshee ciidan rigli ama waxa loo yaqaan ciidanka kaydka ee dawladda u kaydsanaha oo maanta noqonaya markii ugu horeysay la soo shaqeeyo. si kastoo ay haataba ciidamadaasi Alpha Group mayna ku guuleysanin inay gabi ahaanba xoogga argagixisada soo afjaraan. sidoo kale waxaa xusid mudan taliyaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad inuu goobta yimid inuu hay'adaha amniga ee saraakiisha hogaaminaya dagaalada uu la kulmay uuna ku wargeliyay in ay si kastoo noqotaba ay soo afjaraan weeraradan xooggan ee hoteelka ka soconaya uuna sheegay inta in ka badan inaan la daawan karin si kastoo xal ahaataba maadaama warbaahinta caalamka iyo adduunka oo dhan uu isha ku hayo hoteelkan waxa ka soconaya hubka daryaankiisa culayska uu leeyahay ee gabi ahaanba magaalada Muqdisho 48 saacadood ku sii dhow la dhihi karo waqtigan isbedelka uu ku imanayo inaan loo adkeysan karin dadka reer Muqdisho aan 24 saac ugu dambeysay aan indho isku qabarin hubka daryaankiisuna uu weli halkaas ka soconayo. sidoo kale waxaa meesha ku jirta inay hubka la adeegsanayo inuu maanta ka gudbay goobaha dagaalku ka socdaan uu xaafado ay dad rayida ku noolaa hubkaasi inuu gaaray oo ay dad rayida ugu yaraan 30 qof ah u dhaawacyo ka soo gaadhay oo ku jiraan hatta caruus iyo caruusadii halkaas waxay leeyihiin ka soo gaadhay. waa hagaag marka laga hadlayo dhanka amniga iyo weliba qaabka ay ciidamada uga dagaalamayaan Alpha Group Mareykanka ayaa inta badan lagu tiriyaa inuu soo tababaray oo markaasi ay yihiin si gaar ah kooxaha argagixisada ayay aad u la diriri jireen xilliga Xasan Sheekh sanadkii 2016 oo markaasi cajalado aad u tiro badan laga sameeyay howlgallo ilaa shabeelooyinka ay ka sameeyeen waa ay kari laayihiin ayaa la leeyahay bal tirada nimankan iyagu weerarka ku soo qaaday hotel Xayaat oo la og yahay inuu yahay hotel shacbiyadeed laakiin ganacsi ahaan loo furtay cid walbana ay tagi karto oo siyaasiyiin waxgarad aqoonyahan ganacsato intaba ay markaasi tagaan maxaa iyaga si gaar ah ugu beegsadeen tiradooda maxay tahay maadaama la sheegayo inay Muqdisho inta badan gacan ku haynteeda iyagu maamulin oo markaasi awood badan ku lahayn maxaa u suurageliyay in muddada inta la eego 24 saacadood ku dhow ay markaasi ka dagaalamaan gudaha hoteelka. yaa wuxuu ka argagixisada sidoodaba waxay beegsadaan goobaha ay bulshada ku badan tahay ayna ku tuhmayaan siyaasiyiin ama dad xidhiidh la leh dawladda inuu meeshaas ay ka agdhoween yaa inta badan weeraraan ama meelaha bilicda magaalada meelaha horumarka iyo uu ka jiro ay bulshadu ay aad ugu badan tahay weeraraan. nimankan tiradooda sida ay hadda ay warbaahinta ay qorsay maadaama dawladda Soomaaliya ayna rasmi ayna soo saareen nimankii meesha galay inta dhimatay iyo inta nool iyo inta la qabtay ana weli dagaalku uu weli socdo oo la soo afjarin oo dawladuna ayna iclaaminin ama sargaal sare oo dawladda kamid ah ama ciidamada booliska ama hay'adaha amniga ama dawladda noocyada kala duwanaada oo si rasmi ah uga hadlay oo jirin oo sababtoo tahay arrinta waxa keenaya howlgalka weli socda howlgalku ma dhamaan howlgalku markuu dhamaado ayaa la shaacin karaa meeshan sidoo wax uga dhacay hase yeeshee waxyaalaha inta badan ay warbaahintu qorayso ayaa waxay inay nimankaasi 14 yihiin ay dagaalkan saa ku galeen qayb la qabtay qayb la dilay welina ay xoogag sii dagaalamayaan dagaalkuna uu socdo xoogagaasina waa xoogag aad u hubaysan
qaybta haddaan galo ciidamada alfa group say ugu suurtageli weyda 24 saac inay ciidamada dowladda hawshaas kusoo afjari waayaan waxaad moodaa dhanka habacsanaan inay ka jirto hay-adaha amniga iyo isku xidhan la-aanta iyo ciidanka una dhiirigelin fiican haysanin maadaama dowladdan cusub tahay dowladdii horena ay meesha ka tagtay saraakiisha xilalka haya ee ciidamada horjoogayaasha u ah ciidamada dowladda Soomaaliya waay yaa nin walba waxaa tuhun ku jira in uu xilkan waayayo maadaama fashil amni yimid magaalada Muqdisho ay gebi ahaanba la burburiyay meelihii bilic soo jeeshada lahayd madaxweynaha Soomaaliya laga filayay inuu isbedelo waaweyn sameyn doono saraakiil cusub magacaabi doono dowladdiisa uu reform aad u ballaaran uu ku sameyn doono nin walba uu isha ku hayay haddana wuxuu isla nin walba seefta ku qaadaysa uu gaabsanaya meesha waxyeelo ka soo gaarin bilay aad weyn aad u mahadsan yahay kaasina waxa waa saaxiibkii shida oo markaasi la socday wararkii ugu dambeeyay dhanka dagaalka ka soconaya Muqdisho ilaa iyo haatan dowladda dhowr ayaa markaasi dhambaalo tacsiyeena ka soo diray arrimaha la xiriira weerarka lagu qaaday isla markaana rabi uga bariyay inay caafimaad degdeg ah markaasi helaan dowladda Turkiga ayaana kamid ah saaxiib dowla ah Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011 oo lagu xasuusto dadaaladii ay markaasi ka sameysay arrimaha abaaraha oo markaasi Soomaaliya abaar baan ay ka jirtay dhanka kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku baaqay dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab oo uu sheegay inay markaasi yihiin dad dhiig miirata Mareykanka ayaana dhankiisa tacsi ka diray arrimahan isla markaana sheegay in loo midoobo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo inta badan dhaqaale aad u jira badan uu markaasi ku bixiyo ciidamo kamid ah kuwiisana oo lagu magacaabo kana howlgala Africomna la isku yiraahdo ay markaasi taageero tababar iyo waliba dhaqaale ay siiyaan hadaba wixii ka soo kordha wararkaasi iyo waliba arrimaha la xiriira hotelka weerarkaasi soo afjiridiisa iyo dowladda waxyaabaha ay ka tiraahdo waa daawan doonta saaxiibayaal tan iyo kulanti dambe intaan dib ugu kulmayno warbixino la xiriira oo markaasi faahfaahsan kuna aadan weerarkaasi halkan aad ku daawan doontaan sida iyo nabadgelyo